أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. ما بعد halkan waxaan rabaa inaan jawaab yar ka bixiyo warkuu yiri imaam Cabdullaahi Khaliif oo u hadlay habargidirta kana hadlay airportka Baraawo laga sameynayo. Horta walaal, airportka Baraawo laga sameynayo waxa sameynay waa dowladana dhulkay rabto danguud ay u qabsanaysaa. midda xigtana dhulkaasi waxa iska lahaa dad tunni ah oo beero u ahaa. ummadan hadda sheeganayso waa dadkii UNC ka haray oo dhulkaasi xoog ku haystay, canshuurta ka qaadanayo, dadka gumaaday waayo wax hadda raba inay lacag dowladda uga qaataan dhul ay leeyihiin mala. waa tii bariire ka dhacday oo kale gantaalkii lagu dhuftay masaakiintii bagadiga ahaa oo aad sheegateen oo aad tiraahdeen waa dad habargidira oo ku dhammaaday meeshaas. diyadii aad ka qaadateen dadkii masaakiinta eheladoodiina aysan waxba ka helin. marka waxa waaye adoo imaam isku sheegaya, imaamka waxaa loo baahan yahay inuu qof nadiif noqdo oo ka fogaado wixii xun oo dadka ku toosiya jidka wanaagsan, waxa xuna ka reeba. marka haddaad imaam isku sheegaysid walaalow, waxaa loo baahnaa inaad ummadda jidka toosan aad tustid oo midka wanaagsan ilaahayna faray aad ku toosisid, maadaama aad sheeganaysa imaam inaad tahay. horta kelmadda imaam macnaheeda ma taqaanaa? horta midda kalena sheekan ku haya. horta waxaa jiray 1950 ninaa wuxuu ka yimid bartamaha gaalkacyo, wuxuu yimid qoryooli. cilmiyaan rabaa uu 4 sano ku dhex jiray, cilmiguu baranay. cilmigiisu u baranay markii la yiri waa qalinjibisay oo cilmigii waad baratay, ijaaza lagu siiyey, ordo dadkaaga wax u dhigo bar markii la yiri oo kasoo tegay qoryooli, kasoo baxay banaanka u yimid. wuxuu arkay geeli oo garoo socda oo dad aan la soconno iska daaqaya. markaasuu alla tolbeelayay waa geeli jinni qoriyaa isii kutaabadii uu soo bartay dhulka ku xooray. marka dadkaasi ninkii cilmiga soo bartay oo ayaa saas sameeyay. idinka inteed joogtiin marka waa la mid aatiin, mutacalim ha ahaado ama jaahil ha ahaado, waa isku hal. حتى هدان كسو قامنا 91 إلى حد ودنك وادو جيدين بربرك. ورشديه يا فرفرتين، كورنتوينك يا بحصدي، تبوينك بيها يا بحصدي. قف كاسي ملا أوران كرا داد كاسي سميتاس ملا أوران كرا وداد مواطن أو وداني ملا أوران كرا ورت. وإنا اسويدينا إذن كان اسويديسين سواشاس. mala oran karaa dadkaasi ma noqon karaa nin muwaatin ah, nin gurigiisii dareeshada ka furtay asaga lahaa, korontadii ku jirtay baxsaday, tubooyinka biyaha keenay ka baxsaday, gurigii asaga u deganaa. ninkaas gurigaas waa leeyahay, ma la oran karaa waa. marka walaalow, imaan Cabdullaahi Khaliif dhulkaasi dad baa iskale, ilaahay dejiyey siiyey oo abkaab 3,000 sano deganaa iyo wax ka badan lagu yaqiinay. digila iskale dhulka shabeellada hoose. magaaladaas Baraawane min Golweyn ilaa Goobeen tunniya degan waa la ogyahay. cadeemaa la hayaa waqtigii tay Siciid Barqash ilaa xad iyo wixii ka soo ajuuraankii kulli waa la hayaa inay dagaalami jireen. waa dad ahlu diina مساكينة، لكن مركي كبت برتنا أيجنا ويدقال حنيه والوجه. وحي سو علينا يان وحوي دت مسلم هو الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هرتو دتاجر ما هنقال.
waxay diidan yihiin waxa way aakhir beel inuu ku dhaco ilaahay uu cadaabo markii qofka muslimka dhiigiisa haddaad daadisid aakhir ilaahay waa kugu cadaabaya man qatala nafsan mutacammidan fajazaau jahannama qaalidan ilaahay yiri qofkii nin muslim ahoo dila ilaahay waxa way naartu ku fogeynaya marka dadkani waa ahlu diin diintooday ilaashanayaan iyo aakhiradooda rabbigood adduunyadan waqti yar 50 sano in la joogayo ama 60 70 sano in la joogayo waa ogi wixii ka dambeeyo in lagu noolaanayo aakhiradaasi ilaahay meeshuu geynaya asaga oge laakiin inay dadaalayaan ilaahay wuxuu faray ay sameynayaan ahlu diin waxaan koonfurtaas degan afgooye ilaa dhulkaas kismaayo waa dad ahlu diina ma idinku daysan karaan qori inay qaataan oo idinla dagaalamaan way samayn karaan dadkoodii intay xoolahooda gadgataan way samayn karaan hub inay soo gataan marka rabbigay ka baqayaan barke waxa way diintiya qulubteedu ka buuxdo u diidaysa in oo dhiig ay daadiyaan marka adoo kale ah ma ku daysan karaan marka walaalo adduunkani waa waqti yar ilaahay hadduu ku siiyey carab aad ku hadashid af aad ku hadashid intuu qoyan yahay carabkaaga waxaa wanaagsan inaad tawxiidka iyo tasbiixda aad badsatid oo quraanka badsatid oo baryada ilaahay badsatid ma ahan xoolo aadan lahayn dhul aadan lahayn inaad ka hadashid waa dembi taasi dembiga kugu tahay inaad haddana imaam aad sheeganayso qofka markuu imaam yahay waa hoggaan hoggaankana waa mas-uuliyad weyn mas-uuliyaddaasi waxaa laga rabaa dadka inaad tustid wixii fiican aad ka reebtid wixii xunaad u horseedaysaaye bal ka waran dhibka ka dhaco adig soo mas-uul ka mid marka imaamu kolley wixii imaam kaa dhigtay oo adi ku caleema saaro imaam kaa dhigtay kaasaaba qaldanaa marka hore aan ku leeyahay sababtoo saad u hadlaysid qof weyn u hadla male ilmaha dhashay iyo kuwa ilma adeerada aad ilma adeeradaada iyo kuwa aad dhashay iyo kuwa adiga adeerada aad u tahay sidee u hadlayaan haddaad saas u hadashay adig waa ninkii yiri ana amiir wa anta amiir man yusuuq alximaar tiyaad wadaan marka walaalayaal 91 ilaa hadda ummadii waad dhibteen wax idin qabto caqli idin qabto cilmi idin qabtana ma haysaane maxaa la samaynayaa tala idinku soo celinay maxaa la samaynayaa war wax kastaba waa samayseen nalalkii waad furfurateen tubooyinkii aad furfurateen warshadihii aad furateen ma idinku tilmaami karaa inaad muwaadin tihiin may qofkii furfurtay waddan shisheeye hadduu yimaado u furfurtay ha laakiin ninkii waddankan sheeganay oo tubooyinkii furtay oo korontadii furtay warshadihii furfurtay ma lagu tilmaami karaa waddani ma lagu tilmaami karo marka hadda waxaad u soo dhagateen haddana waxa waaye dhulkii dadka inaad ood la qabsataan aad tirahdaan dhulkaas annaga aadkan deegaankii la samayn lahay dadkii ay samaysanayeen guddiga deegaameed aad ka qayliseen waxaad tirahdaan dhulka anaga waa degannahay okay yaa kugu haysta galmudug yaa kugu haysta nin kuga haysta mala galmudug adaa maamulad dadka dhulkooda u dhaafaa maamushaanaya salla cala nabi war ilaahay ma taqaaniin miya ma lidin qaban kara miya mis qaban kartiin miya waryaa ha noqonina sidii qooma caad iyo qooma thamuud iyo fircoon oo kale ha noqonina ilaahay idin halaag war ilaahay u noqdo oo dembi dhaaf weydiista jidka toosan qaadaan idin leeyahay intaasi wad billaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu